guur iyo geedi nooleed qaybta wiilka. Wacays bay soo sidaa, waa wiil. Foosha wiilku marka uu madaxa keeno hooyo hufan la baxday oo aan turxaan lahayn ayaa sacabsan jirtay oo sacbada u dhigi jirtay. Marka uu ifka yimaado ee uu uurka hooyadii ka soo baxo farxad iyo dareen aloosan ayaa lagu soo dhaweyn jiray. Waxaa la hubin jiray in uu caafimaad qabo. Jirjirka ayaa loo jiifin jiray si aanu hadhow badhi weyn u yeelan. Kadibna waxaa lagu anqarin jiray caano lis ah oo haddii ay yaaliin caano geel ah. Caanahaasi waxa ay noqon jireen quudka ugu horreeya ee lagu sooro ama lagu habo. 2 sannadood ee hore ayay hooyadu u heesi jirtay oo ablaablayn jirtay. Waa ay xambaari jirtay, markaas ayay kalgacal iyo dareen shidan ugu heesi jirtay. Codka naxariista leh ayay ku seexin jirtay. Waxay xusi jirtay ka ay jeceshahay in uu noqdo. Dhammow waa dhashii Nabi Maxamedow waa dhalaankii Faadumow waa dhabtaydu ku diidi mayso, dhardhaar adag laguma saaro. Dal dheer laga haybiyo waa dermada loo sii hayo waa. Sidii doog la higsayo waa, sidii damal la hadhsayo waa, dad iyo duunyoba dhirgow waa, ducada loo ururiyo waa. Guntiga feedhaha gasho waa, gadhweyni ka soo baxyo waa, gudida geed ula baxyo waa, nugaal godan goonyaheeda, guddoonka ka yeedhiyo waa. Adoo 2 go' iyo shaal leh, adoo geel dhalay dhex jooga, ayaan guri kaaga yeedhay, gabdhiyo wiil kuba duceeyey. Sidaas ayay hooyadu wiilkeedu ugu halqaban jirtay. Marka hore in uu Ilaahay cimri dherer siiyo si uu fursad ugu helo in uu kaalin nolosha uga guto oo weliba guto kaalin uu raganimo iyo waxtar umadeed ku caanbaxo oo magaciisa meel dheer iyo meel dhowba lagu hayo. Hooyo weliba waxa ay jeceshahay in ubadkeeda la yidhaahdo waa hebel ama heblayo oo hooyo dhashay. Wax ay hooyadu u heedhaheedhaysaba, wax ay sida ay ugu hanweyn tahay hawraar ku astaysaba, wax ay koolkoolisaba, wax uu dhabarkeeda ku seexdaba, wax ay habtaba maalinta uu 3 jir gaadho ayaa koolkoolinta ugu dambayn jirtay. Lama ogolayn in naxariista hooyadu nuglayso, lamana ogolayn in uu haweenka ku dhex koro oo uu ayeeyo korisay iyo habarladaq noqdo. Ujeedooyin waaweyn ayaa arrimahaas laga lahaa. 3 ilaa 4 sannadood ayuu wiilku dugsan jiray naxariista hooyada iyo heedhaheedhaynteeda. Muddadaas kadib ayuu ka xidhiidh furan jiray tafta hooyada. Maalintaas ayaa ugu dambayn jirtay koolkoolin, hoo caanaha iyo hooyo halkan soo seexo intaba. Maalintaas ayaa ugu dambayn jirtay oohin iyo qodax mudday ka calacalkeeda. Naxariistii hooyada naxariis ka duwan oo ka xeel dheer ayuu u gudbi jiray. Waxa uu kow odhan jiray cashar leyli ah oo ku saabsan sidii uu nolosha kaalin uga qaadan lahaa si aanay noloshu mashkilad ugu noqon ama aanu isagu nolosha mashkilad ugu noqon. Yaraantiisaba waxaa loo carbin jiray in uu xerta geela ka mid noqdo. Tuurta ayaa lagu qaadi jiray iyada oo geel haween ah lala raacayo. Geel jiri ay naxariis kala dhaqaaqeen oo bir finiin ka hadhay noqday ayaa taladiisa la wareegi jiray. Adadkaanta iyo gudashada xilka dadiisa ah ayaa lagu barbaarin jiray. Iyada oo aan caano la waayin ayaa gaajada la bari jiray. Haraadka iyo dhaxanta u adkaysigooda in uu qaayibo ayaa lagu tababari jiray. Socodka dheer iyo sabirka ayaa la bari jiray. Guuraha iyo galab carrowga ayaa lagu ababin jiray. Tabaha utanka, legdanka iyo mintidnimada ayaa lagu barbaarin jiray in 2 6 jir ahi isku baxaan oo ay legdan ku kala sidqaadaan ama 2 ulood oo madheer dubayoobay ah loo dhiibo oo lagu amro in aanay isu turin. Habeenkii marka geelu xerada yimaado ayaa wiil la da'd ah la odhan jiray u soo bax oo la legdan, haddii la legdana habeenkaas caano xaaraan ayay ka ahaayeen. Haddii ay ushu damaqdo oo uu ooyo, dibadda ayaa loo saari jiray. Ciqaab kulul iyo waajibaad uu aqoon ka kasbo oo raganimadiisa dhista ayaa lagu howli jiray. Waa dhul oomane ah iyo nolol adag oo aan nasasho lahayn, nugayl iyo nacasnimana laga ogolayn. Naxariista keli ah ee ubadka la barbaarinaya u baahnaa waxa ay ahayd in loogu naxariisto sidii uu u gudan lahaa waajibaadka culus ee sugaya. Waxa loogu naxariisan jiray in aanu noqon cad bisil oo aan nolosha meel ka buuxin oo ay dantu ku qasabto in macne laantiisa lagu naco. Xeerka noloshu ma ogolayn qof macne laan iskaga noolaada. In ilmaha layli iyo tababar lagu dhibaa ma ahayn gumaysi, jahli iyo naxariista ratoona. Waxaa loo gol lahaa in aanu isagu nolosha mashkilad ku noqon, noloshuna isaga mashkilad ku noqon. Waxaa loo jeeday in aanu nolosha ku guuldarraysan oo macne darro iyo gacmo madhan ku dhex joogin iyo in aanu waalidkii eersan oo odhanin maxay ifka ii keeneen. Waxaa looga dan lahaa in aan hadhow la xamaan. Waxaa la rabay in raganimadiisa noloshu mahadiso oo aqoon, anshax iyo adduun uu ku soo kordhiyo. Marka uu waayo cid u calaacasha ayuu isyeelyeelka dhigi jiray oo uu runta iyo xaqiiqooyinka nolosha u hoggaansami jiray, naftiisana waafajin jiray sida laga rabo iyo waxa loo jeedo. Macnuhu ma aha naxariis darro ayaa keenaysay falalka noocaas ah, laakiin waxa arrimahaas looga gol lahaa sidii qofka looga dhigi lahaa qof macne leh oo xaalad kasta oo adag ka jawaaba. Naxariistu ma ahayn in aanu qofku dhib arkin, laakiin waxa naxariis ahayd in ilmaha la baro in uu dhibaatooyinka u adkaysto, waayo adduunka ayaa dhib iyo dhabaraday ku dhisan. Marka ilmaha la tababarayo waxaa loo jeeday in ilmuhu hadeer iyo hadhowba uu nolosha sharcigaas leh kaalin ka qaato. Dulucda iyo halka loo gol lahaa waa in aanay noloshu raganimo la'aan u dumin ee ma ahayn in aanu qofku dhibaatoon. 5 jirka ilaa 6 jirka hasha ayuu soo godli jiray, maraqa ayuu ka furi jiray, gabanta ayuu soo dayn jiray, marka la lisayo mirigta ayuu celcelin jiray. Hal badisa oo uu gaar u lahaa ayaa loo lisi jiray. Guntigab ayuu la bixi jiray oo waxa uu lahaan jiray qayd uu maalintiina guntado, habeenkiina huwado. Waxaa lagu rari jiray gudimaha, hadhuubada iyo maqaarka ugaadha. Waxa uu halkaas uga gudbi jiray xaalad kala guur ah. Kuray maraqa diira. Maalintii geela irmaan u maraq roga. Casarkii gayaxeeya oo aan haraad. Dhaxan iyo gaajaba dambin ayuu noqon jiray. Maraqdiir iyo marka geelo cabayo horidiisa ayaa howlaha uu dadaas qabanayo ka mid ahaa. Qaydab intaas ka waxtar roon oo hurinta ka waaweyn geela ku sima iyo geed fuul geela kor ka jeedaaliya oo orka iyo heesta wehel uga dhiga ayuu noqon jiray. 15 jirka ilaa 20 jirka waxa uu ka mid noqon jiray ragga geela haya. Marka uu barbaar buuxda noqdo ayuu rugaha ardaaga meel ku yeelan jiray. Mudanka barbaarta ayuu ka mid noqon jiray.
waxa uu qaadan jiray kaalin waafaqsan dadiisa. waxa uu ku biiri jiray ragga talada haya ee u heegan waraabka, oodida, lisida iyo dhicinta. intaas kadib ayuu noqon jiray doob hawooda oo haasaawaha googoyn jiray. golayaasha ciyaaraha ee habeenkii ayuu ka muuqan jiray oo 30 ilaa 40 ku gaari jiray. marka uu doob noqdo ayuu hawoon jiray. hagoog ayuu jiq isku siin jiray. haasaawaha iyo sheekada hablaha ayaa hiyigiisa geli jiray. socodka iyo doolaalada ayuu galaa bixin jiray. marka uu 40 jir ku dhow yahay ayuu odhan jiray, guga sidaan u lahaa, guga xiga sidaan u lahaa, geela badi sidaan u lahaa, ayaa gadhku gomada i habsaday. gadiidkii ama maalintii inta badan marba gabadh adhi la joogta ayuu geed ay dhinac ka taagan tahay isaguna dhinaca kale iska soo taagi jiray. waa marka wiilka iyo gabadhu noloshaas isugu dhow yihiin marka laga reebo goobaha habeenkii iyo madadaalada guga. waxa ay ku tidhaahdaa dhulka toosi. waa erey ka mid ah ereyada haasaawaha ku godlo. markaas ayaa wiilkuna ugu jawaabaa, waa tahay ee ka dhaqaaq. markaas ayaa la iskartaa oo hadal la godlaa, labada ruuxna midba wax u baxaa ama u iftiimaa. hadalka laguma sii fogaado ee waa la kala dhaqaajiyaa. hawlo ayaa lagu fogan yahay oo hadal dheer waqti looma hayo, maantana intaas ayaa ku filan. in gabadha gashaantida ahi erey ku tidhi ayaa wiilka cuslaysa, guushaas ayaanu la dhaqaaqa. weli hadalku guntii ma aha ee waa gola ka fuul. guurka geedi dheer, goobo badan iyo gooro badan ayaa xeer u ahay, duurxul iyo weedho dadban ayuu lahaa. kuurgal iyo baadidoon dheer ayuu lahaa. miyir iyo hubsiino ayuu lahaa. gaadasho iyo saamasho ayuu lahaa. waxa uu lahaa dabagal loo jeedo taf ayeeyo kaday oo macnaheedu yahay shishe u baro oo macnaheedu yahay hidaraac iyo tooyasho sugan. intaas oo dhan iyo waddadaas dheer waxaa loo marayaa yaan qoomamo dambe dhicin. goobo badan, gole cayaareed iyo gole ka fuul ayaa xigi jiray. quruxda korka waxaa laga doorbidaa quruxda kasha. waxaa la kala yidhaahdaa qurux iyo qiimi. waxaa nolosha waafaqsan qiimiga oo macnihiisu yahay raganimada qofka ku qarsoon ee aan ahayn quruxda wejiga. waxaa xeel dheer, cimri dheer oo nolosha waafaqsan qiimiga oo ka jawaabaya waajibaadka nolosha. quruxda jaahu laba wad ayay leedahay. quruxda wejigu marka uu qofku muddo noolaado ayay guurtaa, geeridana mar labaad ayay dhimataa. laakiin quruxda qiimiga ee xeeldheerida iyo raganimada ku aroortaa mar qudha ayay dhimataa oo waa maalinta geerida. in qofku gaar ahaan haweenku labada quruxoodba leeyahay way fiican tahay, laakiin lagama maarmaanku waa qiimiga, waayo ujeedooyinka nolosha ayay waafaqsan tahay. sidaas darteed wiilka qooqa ama hawooda ee guur haybiya inta hoga tusaale kor ku xusan ayaa lagama maarmaan u ah. gabadhu geel bay ku xidhan tahay, 100 halaad iyo 50 halaad ka u lahaadaba. marka loo eego xilligaas iyo noloshii tacabka iyo raganimada ku dhisnayd, yaa malayn karaya muddada wiilku 100 halaad oo uu tabcay isla heli karo. sidaas ayuu guurku u ahaa mid wiilku u maro jid dheer oo ku dhowaad 40 sannadood ah. meerisyadani waa markhaati astaan u ah xilligii tacabka iyo raganimada. waa 40 sanno ku dhowaad 3 jirkii ka soo bilaabantay oo ah carbin, tababar iyo toosin ay weheliso golongol, gaajo, haraad, ardaa, boodh leh, oon, waraab, ceelalyo, dhicin, dhaawac, dhimasho iyo af libaax. waayo hashu waxa ay ka dhexaysay ninka leh iyo cadowgeeda. ninku soo duulay iyo af libaax. nololka saahidka, ubadheedhka geerida, ceelka iyo cawska iyo intaas oo dhan ninku waxa uu ugu jilib dhigayaa in uu maalin maalmaha ka mid ah ardaaga boodhka leh ka kaco oo tacabkiisii 40 sannadood soo taxnaa suurtagal ka dhigo in uu heer kale oo nololeed u gudbo, dalacaad, uuna u hoydo guri dugsoon oo gaari dhex joogto. arrimaha hunguri loogama jeedo. waxaa milga iyo maamuus ah in qofku tallaabooyinka isdabajooga ah ee nolosha marba mid u gudbo. qofka waxaa faran in uu marba xilka uu hayo mid ka sii xeel dheer u gudbo. waxa uu doonayaa in gudashada xilka uu ku helo ciidan, ubad iyo ori la suurtageliya tacabka nolosha, garab iyo gaashaana ugu noqda halganka nololeed ee uu ku howlan yahay. waxa uu u baahan yahay in uu dhiso qoys nolosha ku faafa oo ku tarma oo si ballaadhan uga qayb gala. magaciisa iyo darajadiisa waxa ay ku xidhan tahay ori hawsha dhinaceeda qabata iyo ubad marka uu ninku xilka hore uga maro dhaxla oo ka soo dhalaala. marka uu dhaqaalihiisa iyo dhulkiisa u helo hurin ku qaybta ayuu hananayaa darajotii qoyskiisa ka xeel dheer, dan guud iyo geedka laga hogaamiyo beesha. halka guurtida beesha guddoonka u haysaa fadhido ayuu meel iyo malka ku yeelanayaa. gudashada xilkiisa ayuu garab iyo gaashaan u doonayaa, samaha ayuu u ciidan badsanayaa, cadowgana wuu u colkorodhsanayaa. wiilku marka uu gacanta ku dhigo shuruudihii guurka ama gabadhu ku xidhnayd ayuu galayaa baadidoon dheer oo loo marayo jidkii dheeraa ee aynu ka soo warrannay. maalinba geed waayeel iyo guurti fadhido ayuu ag fadhiisanayaa oo waxa uu wax u sii baranayay xilal sugaya oo guri, geed iyo god aakhiro ah. dhegta ayuu maalayaa. maalinba in ayuu guntanayaa. maalmo badan la tashi guur ku saabsan ayuu ragga uga gedaha weyn kala arrinsanayaa. maalmo kale gaaf wareeg, goolibaadh iyo marba gabadh isla taag ayuu ku foognaanayaa. habeenada guga ayuu ka qayb galayaa goobaha madadaalada. sacabka iyo cayaarta ayuu raaba qaadayaa. hibadiisa iyo waxa hiyigiisa ku jira ayuu soo bandhigayaa. hugufka gabdhaha ayuu u hiloobayaa. isaga oo aan war isku hayn habaaska uu liqayo iyo inta godax ku jabaysa oo hawlo kale kaga jeeda ayuu marba odhanayaa. sidii qabax ha nagu odhan, sinta bidix ha naga marin, geeliyaga ha naga saban. isaga iyo wiil kale oo ay gabadhi dhex boodayso ayaa maradiisu maradeeda taabanaysaa. markaas ayuu cirka u baxayaa oo dhulka sare uga kacayaa. habeenkaas iyo habeenno kale oo la mid ah waxay u noqonayaan habeenno imrigiisa ka suntaan. isaga oo halkii uu daal la kala dhici lahaa dardar cusub isku laba rogaya ayuu waa berigu soo dhowaanayaa. gabadh baa odhanaysa, waagii ma daalacay, dayaxii ma soo baxay, daylo naysha ma u ciday, hooyaday dagaal badan baqaamay dilaysaa. halkaas ayaa iyada oo waaga la dhibsanayo la kala dhaqaaqayaa. waa dad isu baahan oo danta guud iyo karaamada ummadda ilaalinteeda u kala xidhan. waa fursad qaali ah oo sanadkii habeen ama habeenno ku kooban.
isaga oo maradiisii marada habluhu taabteen marba meel ka ursanaya ayuu ardaagii geela ku noqonayaa goor waa beri ah. dardarta iyo dareenka shidan ee uu habeenkaas golaha kala tegay ayuu sanad dambe ku sii shaqaynayaa. haloosiga iyo luuqdii hablaha ayaa sanadkaas oo dhan dhegihiisa marba ku soo dhacaya. marka uu dareemo in uu gabaatigii yaradkii iyo hadhadii reerkaba gacanta ku hayo ayuu hagoog jiq isku siin jiray. dhiggiisa iyo nin guurka ugu warroon ayuu hadba guur kala sheekaysan jiray. marba gabadh ayuu isla taagi jiray. waxa uu odhan jiray allow gaaridii loo xishiyo gololo loo reeyo. wuu talo badsan jiray. waxa uu muddo dheer ku fognaan jiray matan mise tan. isaga oo xeerka guurka cuskanaya ayuu reer tilmaan leh oo magac iyo xishmad ku caan ah oo haddii loo xisho dhowr hablood oo lama hadiyey laga guursaday abaari jiray. gabadh sheegan oo ragga wada haybinayo ayuu goor barqo ah oo xoolihii kala foofeen iyada oo keligeed ah oo harar qabyo ah farta ku haysa kadinka aqalkooda istaagi jiray. waxay yeedhi jirtay yaa jooga. way ka aamusi jirtay kol iyo laba oo horta way is ururin jirtay. kol dambe ayay odhan jirtay waa la joogaa oo daaran soo dhaaf ama soo soco. waxa uu odhan jiray ma halbaa ma halal. markaas ayay iyaduna ugu halcelin jirtay adba hubi. intaas haddii la isdhaafsaday ayuu odhan jiray sadcaal meel fog ka yimid iyo socoto marti ah midna ma ihi meel dhow baanan ka imid. kuurgal iyo ku talagal ayaan ku socdaa. waa ay aamini jirtay. hararkii qabyada ahaa ee ay farta ku haysay ayuu dacal kaga fadhiisan jiray. aqalka daahiisu sidaas ayuu u laabnaan jiray inta wiilku guradiisa fadhiyo. sodo hooyadii gabadha dhashay ah oo aqalka hortiisa haan gawa ah ku tolaysa oo ninka sheed ka halacsatay ayaa gurigeeda geli jirtay. hunguri ma jiro oo wiilku han buu u socdaa sidaas darteedna hadal kooban isaga iyo gabadhu islama dhaafi jirin. hadal waafaqsan xeerka nolosha sarbeeb guurka ku salleh iyo kaftan googaan ayuu tixi jiray. laba kol ayuu boodyaha jeedal qarash leh kaga dhufan jiray si sheekadu u furanto. iyaduna si deggan dadban oo kooban ama eray ujeeddadu ku dhan tahay ayay ku celin jirtay. hadalka ma qurquriso ee way qabqabataa. marka uu meel ku gororo ayay darro madaxa u marin jirtay. isaga oo amar la dheeldheeliyaya ayuu guriga ka bixi jiray. intaas kadib ayuu haween muraadada ku xeel dheer oo yoolbaadhka kala qayb kala diran jiray. habeenkii cawayska marka ay xerada ku jirto ee hooyadeed hadal dhex marayo ayay isaga iyo hurin la soctaa kuurka u geli jireen. marka bilkeedka iyo beeqaaqu dhammaado ee isaga hurin ilmaadeeradii ahi goobo iyo gooro arrinta marba dhan kaga yimaadaan ayuu maalin maalmaha ka mid ah go'aan qaadan jiray. cirgadooday diriir gaamurdaay galayax waalaystay onkodkoo gariirkii ka baxay galowgu yaabyaabay guulaamo sawsaba kortiyo dhibic garaaraysay guulo oo mareegaysay iyo gabadh la miishmiishtay waqal gaaftay jarar soo gabraday gebiyo soo ciiray gibil bururtay galefoos burburay galangal leexastay gurdan baxay xareed galal jabtiyo godano miilaystay dadka oo intuu nabad gobladay godob la'aan toosay qoraxdoo garayskiyo martii gees isaga xoortay dayaxoo intuu gaadh ka degay gacalo muunsooday tigaado gambada uunsato shidatay geedsaaqa marka geela laantiisa dheer gabantu soo reebto guryahoo haleelada sidkani gaabis kaga fooftay marka gororka naasaha fatahay gobada dayn weydo galab uu kulaylkii ka jabay gubayey jeedaalka qoraxdoo golaha kuulatood gaari wacan moodo gaaraabi dhaankiyo markay taranto goobaantu aways ay gabdhuhu boodayaan golaha saarayda dayaxoo galshada meersadood geesi baan moodo xilligay gamaankiyo ifaan quruxda gaaraydu dhulka oo galaaluhu simeen gun iyo baarkiisa cosabkoo golxada fooraro laba gardhaalaystay qoraxdoo gelgelimaysato gorodu laalaado dayaxoo goyaal wada cas iyo shaal galgala qaatay guxasilay gudgudayaal habsaday adhaxda gaaroodi marka awrku goojada ka simo gaasabaxa dhaartay qoraxdoo guduud lagu boqroo meel garba ah saaran dayaxoo intuu garab la baxay goodi uga muuqda gararkiiyo taraaraha madow kala gadoonkooda gabal ururay waa soo gurguray labada goorood dheh goor casar dheere ah ayaa wiilkii oo hurin ilmaadeeradii ah oo jeedal dheer ah iyo hurin guurti ahi ka faana horaysaa beeshii gabadhu ka dhalatay soo abaari jireen. mudanka isa soo xushay ujeeddadoodu ma qarsoona. hugga ay sitaan sida ay u habaysan yihiin iyo hannaanka ay u socdaan ayaa war ku dhan yahay. ardaa gobeed ayaa dadab googoos iyo indhadaalis ku taxan yahay lagu waaheeli jiray. maalin ama laba sooryada iyo ismuujinta ayaa socon jirtay. maalin saddexaadda ayaa la isu afbixi jiray. afgobeed sarbeebo iyo hadallo saldheer oo dhoolatus waayo taariikho iyo dhacdooyin nololeed ah ayay martidu ku horrayn jirtay. marka ay dhaabadayso ayay sheekadu dhinaca kale u digarogan jirtay meexaanaha ayaa wakhti qaadan jiray. hooyada iyo haween dhowr ah ayaa meel aan ka fogeyn goobta wadahadalku ka dhacayo iyo ardaaga bilan isa soo taagi jiray. inta gabadha warkeedu socdo haddii baanaha wax laga dhaafo iyaga ayaa ku dari jiray. maalmo kadib ayaa gacanqaad ku dhici jiray. gabaati hordhac ah ayaa guriga la keeni jiray yarad 50 ilaa 80 halaad ahina waa daba socon jiray. aan yara hakiyo oo aan idhaahdo wiilkii waa kaas ee wax yar ha isugo